asxaabiyaad soo dhawaada. maanta waxaan idinla wadaagaa cabitaankan aad u jeedaan aad buu u macaan yahay. haddana markaa cabaysid waxaad dareemaysaa inaad cunto cunaysid. aadna wuu u macaan yahay, nafaqana wuu yahay. asxaabta aan fideogeena gudagalno. bismillaah, allahumma salli calaa sayidina maxamed. weelka cabitaanka ku shiidanaan soo qaadanaa. asxaabta mooska markaa cabitaanka sameysanaysid ama aa cunaysid waa inuu bisil yahay, korka ka bisil yahay, hoosna uu caadi ka yahay, uusan mujuq ka ahayn. khatar waa markuu mooska saan u bisil yahay. 2 xabo moosaa soo qaadanaa. tan kale asxaabta qaaliga, mooska galkiisa lama tuuro, tinta waxyaabaha la marsado waa lagu sameeyaa. isagoo sidiisa waxaa sameynaya gacmaha marsanaysa, jileecuu kaaga dhigaa. waxaan waa strawberry freeserkan kasoo saaray, bacaa ku shubanaysa. marka intaa dhaqday si fiican, wax badan ay ku joogi kartaa, freeserka kugu jiri kartaa. haddaadan haysan any fruuda ku bedelanaya asxaabta. laakiin cabitaankan strawberry moos caanaa ku shubay, wax kalena waa ku dareynaa. runtii cabitaankan aada u macaan yahay. hada quraac buu ku noqon karaa. waxaan lows baan dubay asxaabta qaaliga, waa soo shiiday. inaba caadi ma, lowska muxuu ka dhigaa, malabna waa ku daraa, sokor ma taabsiina, ayagana macaan oo malab xataa uma baahna. asxaabta lowskan aan ku daray muxuu u sameynaya, markaa cabaysid inaa wax cunaysaa moodaysaa, ilkahaaga maasha allah. haddana culays macaan. cabitaankan inaba caadi maaha. walaashay maxaa isa sugaysaa, hadda kac soo sameyso. runtii cabitaankan weligaa ma joojinaysa haddaa barata. haddana nafaqo waaye. strawberry weliba gabdhaha xaamilka aaday ugu fiican tahay. qof kasta cabitaankan waa macaan, waa nafaqo, waynu kula talinaa. xataa ciyaalkiina cabitaanka naturaalka u sameeya asxaabta qaaliga. markaa baakadyada usoo gadaysaan, sokor la walaaqay waaye. intaa ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.